كوران haddii aan ku dhaho Soomaaliya waxa ku yaala warshada ugu weyn ee soo saarta solarka guud ahaan bariga Afrika taasoo ay hirgeliyeen ganacsatada Soomaaliyeed marka la joogo Soomaaliya dadku waxay helaan quraac joogto ah ceelis ahaan wax ka badan 10 saac ama 12 saacadood balse bulshadeenu kuma baraarugsana ka faa'iideysiga hibadaasi dahabiga ahi ee korkooda taala quraxdu waa isha ugu weyn ee nafta soo kicisa subax walba waa quwad wadata iftiin aan la cabiri karin kuleel aan la qaboojin karin iyo tamar aan dhamaad lahayn isticmaalka solarku waa tamar degan oo nadiif ah oo u dhalatay inay badbaadiso bulsho dhaqaale ahaan hooseeya iyo dal rabo inuu cagiisa isku taago Soomaaliya waa ogtahay wadan 8 saac iyo 9 saac ka badan qoraxdooda haysata dalkeena wuxuu u baahan yahay system noocaas oo kale ah inkastoo energy fara badan ay jiraan haysan kan solarka waa green energy environment uu fiican yahay dadku uu fiican yahay qofku meesha doono ku xiran kara ama miyaha jooga ama magaalaha jooga ganacsiga uu fiican yahay warshadaha xataa ku shaqeyn karaan doomiyada waa ku kalluumaysiga waa ku shaqeyn karaan saa ogtahay beeraha systemka oo kale waa ku shaqeyn karaan markii dibeen waa chance ilaahay siiyay ilaahay cimiladan dalka Soomaaliya siiyay warshadani ayaa waxa ay si maalinlaha u soo saartaa wax ka badan 2,000 oo solar ah ilaa 2,000 xabo idibeen waxa ku xiran tahay shaqaalaha hamini maalin markii la shaqeynayo 2,000 xabo noocaan soo saari karnaa mashiinadana cable waxay u yihiin halkii mashiinba inuu 10 daqiiqo hal xabo soo saaro marka 5 xabo waa weyn haysanaa min 10 waa qiyaas kartaa qaybta yar isku go'an wareega marka halkii cell waa 6.4 waaye hadda waa 6 xabo isku xiran waaye 6 xabo waxana siinaysaa 440 watt sanadna marka high peak iyo low peak uu kala leeyahay high peak giisa waa 440 low peak giisana waxa way 390 marka kan oo 2 xabo ama 3 xabo marka la isku xiro wuxuu reej garan karaa 880 oo watts marka kan oo 10 xabo ama 15 xabo wuxuu kaaf garan karaa howl gurigiisa oo kale guri dhan oo complete oo isticmaalaya cooking air conditioning waxa dhan ah قصالدي قصالدي waxa oo dhan ah agaasimaha guud ee warshada Horn Africa Solar Engineer Maxamed Ali Maxamed ayaa sheegay in warshadan laga hirgeliyay gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho ay sabab u tahay hadalkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa in qurba joogtu ay dib u maalgashtaan dalkooda waxa weeye Maxamed Ali Maxamed waxaan ka soo jeedaa reer Mareykan especially USA oo state of Maine Portland Maine warshadan waa ogtahay dalka Soomaaliya warshad ka taala oo energy ma jirin baaqi madaxweynaha ka faa'iideysan oo ahaa dadkii qurba joogta ahaa ee dibadaha joogay inay ku soo laabtaan dalkooda wax qabad iyo wuxuu la yimaadaan weyn way hadda dadka ragga motorada isticmaala ragga qaarkiis waxay sheegeen 10kii bari in $10,000 isticmaalaan oo lacag badan ah anaga $10,000 bil gudahood lacagta la isku daro waa kaafti garan karnaaba oo meesha waxa ka baxaysa 8 cents gaasiyaan anaga awood waxaan u leenahay inaan ka yareeno oo half lacagtaas aan gaarsiino waa waxa dadka shacabka kaga faa'iideysan karaan midda meesha taalo kale waxa weeye anaga waxaan soo saarnaa baalaan waxay isku xiraan solar light-kii oo street-ka ahaa waa ka gudbi karnaa hadda waxaan gaari karnaa inaan siino doomihii kuulankii iyo baalkii isku soo banay iyo solarkii ka faa'iideysiga tamarta quraxda kaliya ma ahan hoos u dhac ku yimaada qarashaadka ku baxaya korontada balse waa in dadku aysan ka walwalin shidaal dhamaadi iyo in goobaha ganacsiga shaqooyinkooda uusan u joogsan koronto la'aan محمود بولبر وarbaahinta qaranka